kordhinta awoodda jirka ee gubista baruurta inta lagu jiro bisha Ramadaan waxay u baahan tahay istiraatiijiyad caafimaad iyo jimicsi si taxaddar loo qorsheeyay. Ku soo dhawaada mowduuc kale oo xiiso leh oo ka mid ah fariimaha soonka iyo caafimaadka ee ay idiin soo diyaariyeen kooxda isbitaalka Kalkaal. Maantana waxaan si kooban uga hadli doonaa soonka iyo kordhinta awoodda jirka ee gubista baruurta inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Marka la sooman yahay, jirku wuxuu soo saaraa marxalado kala duwan oo la xiriira dheefshiidka iyo kordhinta tamarta, taasoo keeni karta in baruurta lagu gubo si kor loogu qaado tamarta. Cuntadaad cunaysid markaad afurayso waa inay ahaato mid isku dheelitiran oo ay ku jiraan borotiinno sida hilibka ama kalluun. Si gaar ah yaree cunista macaanka iyo cuntooyinka dufanka badan leh. Ka fogaanshahaaga cunista xad-dhaafka afurka ilaa suxuurta waxay keeni kartaa in jirku u beddelo cuntada dufan halkii uu ka heli lahaa tamar, taasoo hoos u dhigaysa awoodda gubista baruurta. Cabista biyo kugu filan waqtiyada afurka iyo suxuurta waxay ka caawinaysaa dheefshiidka iyo jirkaagaba inay ahaadaan kuwo firfircoon. Waxyaabaha kale muhiimka ah aad samayn karto waxaa ka mid ah jimicsi fudud ka hor afurka. Jimicsiga fudud ama socodka degdega ah ama jimicsiga miisaan qaadista leh waxay caawin kartaa in jirkaagu isticmaalo baruurta u kaydsan, maadaama jirka uu ku jiro xaalad tamar u baahan. Kadib markaad afurto, samee jimicsi miisaan qaadista, jiimka inaad aado, ama noocyada kala duwan ee jimicsiga sida orodka ama ruclada oo dhammaan ka caawin kara in jirku tamarta ka soo saaro cuntadaad cuntay halkii uu ka kaydin lahaa. Inta lagu jiro suxuurta iyo afurka, dooro carbohydrates leh tamar hoose sida bariiska ama rootiga qamadiga laga sameeyay, si heerarka sokorta dhiiggu si tartiib ah u kordhaan, taasoo ka hortagaysa kaydinta dufanka xad-dhaafka. Waxaa kaloo muhiim ah inaad hesho hurdo kugu filan, maadaama hurdo la'aantu ay saameyn karto habka jirku u shaqeeyo, gaar ahaan markay timaado kaydinta baruurta iyo rabitaanka cuntada.